kumanaan Soomaali ah oo ku nool guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalkani Koonfur Afrika oo watay qoysaskoodii ayaa waxay isugu soo urureen masjidka weyn ee Imam Shaafici ee ku yaalo bartamaha magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika oo ah xarunta ganacsi ee dalkani iyadoo ay ka furmay shalay shir sanadeedkii koowaad ee jaaliyadda Soomaalida dalkani Koonfur Afrika. shir sanadeedkan ayay soo agaasintay hay'adda culimada Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika ee Albayaan ayaa waxa muxaadarooyin silsilada ah ka jeedinayay culimo waaweyn oo Soomaaliyeed kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. muftiyada mugga iyo miisaanka ku leh ee shirweynahani haatan ka socda magaalada Johannesburg ka qayb galaya waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Idris muftiga weyn ee bariga Afrika, Sheekh Maxamed Cabdi Umul iyo Sheekh Maxamuud Shibili oo dhammaantood ka tirsan culimada salafka ee Soomaaliyeed. shirkani haatan ka furmay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay magaaladu ay u dabaaldegayso munaasabadda ciidda Masiixiga oo ay magaaladu hawanayso iyadoo dhanka kale xaafadda ay Soomaalidu degan tahay ee Mayfar ay u ekeyd sidii maalin Ciidul Fitri oo kale iyadoo dumarka caruurahooda gawaarida ku sita iyo kuwa gacmaha ku jiidayo ay dariiqyada buux dhaafiyeen. waxa uu shirweynahani ka furmay kulan dumarka loo qabtay oo muxaadaro ka jeediyay Sheekh Maxamed Idris waxaana xigay kulan kale oo ragga loo qabtay salaadii duhur kadib muxaadaro ku saabsan qoyska uu ka jeediyay Sheekh Shibili. shirkani ayaa waxa xiriiriye ka ahaa Sheekh Qorane Cabdi oo kamid ah culimada Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika, halka afhayeenka Albayaan Sheekh Cabdirasaaq Mowlaana uu ka warbixiyay taariikhda jiritaanka golaha dacwada Soomaalida ee Albayaan iyo marxaladda dacwada islaamka dalkani Koonfur Afrika. Bayaanul Islaami waxa la aasaasay 1997 ayaa la aasaasay oo asaaskii ugu horeeyay la aasaasay muddada dheer uu soo jiray waxaa laga dhaqan geliyay oo laga register gareeyay xagga dawladda 2006 oo uu noqday hay'ad qaabilsan fidinta dacwada iyo diinta oo ka register garaysan dalkan Koonfur Afrika. markasku wuxuu qabtaa hawlo aad u fara badan. hawlaha uu qabto waxaa ka mid ah arrimaha dacwada guud ahaan oo ay ka mid yihiin keenista culimada oo hadda aragtaan inay garabkayga fadhiyaan culimo badan oo culimadeennii waaweynada ajillada ahayd ka mid ah. Allah inoo barakeeyo cilmigoodana kii anfac yeesha Allah inooga dhigo, iyagana miisaanka xasanaadka Allah ugu buuxiyo subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid ah arrimaha uu markaskani qabto dhisidda iyo abaabulidda maraakista, maadaama dadka Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu soo badanayaan dalkan maalinba maalinta ka dambaysana ay ku soo badanayaan oo laga yaabo 10 sano ka hor hadda inta joogta haafkeed inaanay joogin. in meel kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan laga dhiso maraakis iyo meel ay isugu yimaadaan oo lagu ilaaliyo diintoodii iyo raasumaalkii ay haysteen. sabaha ahaatee tani ayaa waxa ay astaan wanaagsan u tahay Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika iyo in ay jirto isbedel dhinac kasta ah. waana markii ugu horeysay ee dalkani Koonfur Afrika lagu qabto shir sanadeed caynkan oo kala ah oo tira intaas la eg ay Soomaali ay ka soo qayb gasho. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga iyo Universal TV, magaalada Johannesburg.